kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo Somali Coverage TV ayadoo ay tahay 18 bisha Agoosto sanadka 2026 waana fidnimo talaado ah oo ay Arbaca soo galayso tabintan si gaar ah waxaan ugu eegi doonaa kadib 60 casho oo wada xaajoodyadii Mareykanka iyo Iran ay socdeen waxaa soo gabagaboobay waqtigii xabad joojinta haatan oo la joogo waxaa qulqulatooyin xooggan ay ka taagan yihiin bariga dhexe gaar ahaan Marinbiyoodka Hormuz halkaasi oo Iran markab ay ku waxyeeleysay mid kalena uu ayada gacanta ugu galay Imaaraadka Carabta ayaa waqtigan oo idin la hadlayaba waxa ay sheegeen in laba gantaal oo kuwa markaasi ridada dhaadheer oo laga soo tuuray dhinaca Iran ay markaasi ku dhaceen gudaha dalkaasi isu taga Imaaraadka Carabta haddaba 60 casho kadib xabad joojintii markii ay soo idlaatay xageeba waqtigan looga socdaa ma waxa ay u muuqataa in dagaalkii uu dib u bilaabanayo mase in dhinacyadu ay mar kale cusboonaysiin karaan wada xaajoodyada xaalku sida uu yahay waxa ila falaqeynaya oo qadka dhinaca isla bariga Afrika asna uga jira Cabdulqaadir Qayska oo aynu badi ka wada hadalno arrimaha ku saleysan madaxa warweyn TV-na ah arrimaha ku saleysan bariga dhexe soo dhaw Cabdulqaadir ugu horeyntii maxay yihiin waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacaya bariga dhexe haatan oo idila hadlayso aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed mar kale kulan wanaagsan adiga iyo saaxiibadaada qiimaha badan ee Somali Coverage TV-na waa salaamaya salaan kadib waxaa muuqata xiisadda bariga dhexe in mar kale ay soo laba kaclaynayso isla markaana 60kii cishe la soo dhaafay oo la tilmaamay ama la filayayba in heshiis lagu gaari karo waxaa muuqata in wax walba ay fashilmeen haddana mar kale xiisadda ay soo laba kaclaysay isla markaana dagaal qarka loo saaran yahay heer cabsi weyn ay taagan tahay dabcan saacadihii ugu dambeeyey meeshii ugu sarreysay ayay gaartay kadib markii Imaaraadka Carabta la sheegay Iran in dhowr gantaal iyadu ay markaasi ku tuurtay ilaa hadda ma jiraan in Iiraaniyiintu ay markaasi si toos u sheegteen laakiin wararkii ugu dambeeyey waxay leeyihiin bayaan ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta gaar ahaan wasaaraddeeda difaaca ayaa lagu sheegay nidaamka difaacyada cirka ee Imaaraadka Carabta inay ogaadeen ilaa laba gantaal oo laga soo tuuray Iran kuwaas oo ku wajahnaa dalka waxay sheegeen in gantaalka koowaad uu ku dhacay meel ka baxsan biyaha dhulkeeda Imaaraadka waxay sheegeen sidoo kale gantaalka labaadna uu ku dhacay gudaha dalkaasi Imaaraadka Carabta waxay sheegeen in heegan buuxa la geliyay nidaamyadii difaaca isla markaana si buuxda ay ugu diyaar garoobeen wax ka qabashada qatar kasta dhacdadan ayaa imaanaysa Zaaroy iyadoo la ogyahay in saacadihii ugu dambeeyay xiisadda ay sii kordhayso warbaahinta Iran waxay sheegtay in markab laga leeyahay Imaaraadka Carabta oo shidaalka qaada in lagu qabtay xilli uu marayay Marinbiyoodka Hormuz wakaaladda wararka ee Faris iyaduna waxay ka hadashay xogta markabkan inay muujinayso in lagu qabtay agagaarka ama jasiiradda Kish ee dalkaas Iran Iran saddex shuruudood oo ugu muhiimsan tahay lacagta in la bixiyo in la maro marinka iyagu ay u jideeyeen iyo waliba waxyaabo kale oo muhiim u ah Iiraaniyiintu in markaas ay ku soo rogeen ama xitaa ka hor markabka inta uusan soo marin goobtaas uu la soo hadlay Iran hore waxaa kaga horeysay Imaaraadka Carabta maraakiib gaar ahaan shirkadda Adenok ay leedahay in la duqeeyo marka xiisaddu way sii kordhaysaa waxaana moodaa in culaysku markan uu u jeeysanayo dhanka in dagaal toos ama foolka fool uu dhaco maxaa yeelay 60 cisho oo la filayay xabad joojina markaasi oo inkastoo waliba xabad joojinta toos aysan u jirin markii qaarkii dhacdooyin ay dhacayeen 13 cisho oo kamid ah si toos ah Mareykanka iyo Iran ay isu duqeynayeen haddana 60kaasi cisho kadib madaxweynaha dalka Mareykanka iyo waliba ragga u dhow waxa laga soo xigtay si official ah in ilaa hadda xabad joojintii ay dhamaatay wax heshiis wada hadal ama wax wada hadal oo waqti xaadirkan loo guda jirana aysan jirin Iranna waa beeniyeen xitaa xiriir inay la soo sameeyeen madaxweyne Donald Trump iyo waliba tiimkiisa la shaqeynaya waana markaasi war toos markaa u muujinaya xiisadda in cirka ay markaasi sii galayso marka isku soo wada dub waxaan dhihi kareynaa maalmo adag ayaa bariga dhexe u jeesanaya وهاجاج إن وحن أجنها إن إمارات كعربته مرك الله إيجو إيران واحد بعتا يسدح أولين وايد وجودن بيسي حتى نقاله هذا الصوف الصحين أو أي أقلادين قيب أهان إيران سيس أفجر ذا أنا يانا للدقين أمنا لدبعتين وحربتان إيراني ويلنا محاكين مرك الدقيمها أن هرتله هذا إليهن دنع وحنوج إيمانا يان إيران
marka la eego inkastoo ilaa hadda Iran ay si rasmi ah u sheeganin laakiin waxaa jiri karaya in wax ay isbedeleen marka la eego imaaraadka carabta si toos ah inay dhaqaale u siiyeen marka maysan sheegin Iran sidoo kale Iranna maysan sheegin laakiin waxay ahaayeen wax warbaahinta oo dhan ay ka wada hadlayeen iyo weliba sir ama xogo hoose oo si toos ah warbaahinta loogu soo dusiyey laakiin taa marka laga tago saddexda wadanba imaaraadka carabta qatar iyo weliba cumaan waqtiyadii ugu dambeeyey Iran isfahamkoodu wuu yaraa cumaan waqtiyadii dambe heshiis inkastoo uu jiray Kuwait ayaana sidoo kale qatarteeda taagneyd marka aanu kala qaadno imaaraadka waxaa la aaminsan yahay in aad ugu dhow yahay Mareykanka iyo weliba Israel labadubana mar walba imaaraadku waxaa la sheegaa in shirkadihiisu ay ahaayeen kuwa ugu badan ee waqtiyadii ugu dambeeyey maray marinbiyoodka Hormuz taasoo raalli aysan ka ahayn imaaraad Iiraaniyiintu isla markaana dhowr jeer ay beegsadeen waxaa hadda warbaahinta qaar ay leedahay umuurahaasi ayaa ka dambeeya xiisadu mar kale inay laba kaclayso iyo weliba Iran oo dareemaysa markan in aysan dan ugu jirin in markaa xabajoojin ama qorshe waxa la yiraahdo la xarb wala silmo ah heshiisna inaanu jirin nabadna inaanu jirin marka waxa xusid mudan kaliya ma aha imaaraadka carabta waxa xiisada u dhaxayso Kuwait oo kale waqtiyadii ugu dambeeyay aad bay markaa meesha ugu sareysay xiisadeeda u gaareysay warbaahinta shalay ilaa maanta waxay qorayaan suurtagalnimada Iran in ciidamo ay ku geyso gudaha dalkaasi Kuwait ama duulaan dhanka lugta ah ay ku gasho inaga oo markaasi xad toos inaysan la lahayn xad duleeda laakiin haddana waxay leeyihiin biyo suurtagal ay tahay inay ka tallaabi karaan walow qatarteeda ay leedahay taasoo ku tusinaysa warbaahinta qaarkood inayba xigteen rag sarsare oo ka tirsan maamulka mujtaba Khamenei ee ilaalada kacaanka dalka Iran oo la leeyahay talaataas bay qaadi karaan sidoo kale waqtidii ugu dambeeyay waxaa jiray hanjabaad xitaa qadar wada hadallo kula jireen ay isdhaafsanayeen Iiraaniyiintu markaa taasina waxay ka dambeysay arrintii dhacday saddexdii baylood Iran ee markaasi diyaaradda ka soo duushay diyaaradoodu ee ku dhacday gudaha dalkaasi qatar oo markii hore la sheegay qatar inay markaa hayso saddex duuliye mar dambana ay sheegtay qatar inaysan haynin saddex laakiin waxaa la hayo ay tahay hal duuliye oo markaas Iiraaniyiintu ay dalbadeen guddi gaar inay soo dirsadaan iyagu inay baartaan markii dambana qatar ay diiday taasoo Iran ay ku fasirtay in qatar wax ay qarinayso maantada ugu dambeysay markaas ay leedahay dawladda markaa Iran saddex ayaad haysaan waa inaad saddexdaba keentaan marka taasoo ilaa hadda qatar ay diidantahay marka xiisadu saddexdaasi wadan waqtidii ugu dambeeyay heerka ugu sareysay Iran ka gaareysay marka umurahaas oo isbiirsaday ayaa ka dambeeyay baa leeyahay haatan oo la joogo sida ay ku waramayaan qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka saraakiil uu ka mid yahay nin la yiraahdo maxaa ku raahdaa magaciisa isla markaasina ka tirsan macadka la yiraahdo Hudson Institute Brian Clark ayaa la yiraahdaa ninkaas waxa uu sheegay in Washington xilli xadidan ay haysato oo markaasi ay ku sii joogi karto bariga dhexe iyadoo xaaladdu ay sidaan tahay Donald Trump waxa uu leeyahay haddii uusan qaadin weerar haddii uusan awood marinbiyoodka Hormuz uusan ku furanin hadda wada xaajoodyo iyo in Iran uu wax ka dhaadhiciyo ma suuroobayso in ay wadada ku furi karto maxaa la gudboon Mareykanka oo tallaabo ah oo la fili karaa inay qaadi karaan Imara Luxury Homes mar haddaadan Imara guryaha ayaal kumayso in ka iibsanahaynood intifaacsan karayn ma adaaba adduunka raaxadiisaba eegay dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kastoo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaanna soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Dennispreet Road faafahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda marka la eego dhacdadan marka waqti xaadirkan taagan iyo waliba Iran mowqifkeedu waa mid cad waxay leedahay waxa kaliya anaga aan u baahnaa waxay tahay haddii heshiis la galayo waa in la saxiixaa shuruudihii anaga aan soo bandhignay markaa Trumpna waxaad moodaa isagu inuu isbedbedelayo tusaale dawladda Cumaan isaga ayaa qadka u jeexay isaga ayaa dabcan wuxuu raali ka ahayn ma samayn karaan marka la eego iyaga ayaa in ay
wadahadal la galaan sabab toosa u ahayd marka la eego walow dal madax bannaan ay tahay haddana waxaan ognahay siyaasadda wadamada gacanka inaysan markaasi toos inaan looga hor iman maraykanka ay ku tiirsan tahay laakiin haddana wuxuu ka shakinayaa iyadoo markii hore memorandumkii isagu uu saxiixay ama dowladdiisu ay saxiixday toos u diiday inuu hirgeliyo sababtoo ah wuxuu u arkay khatar weyn inay markaasi ku ahaanayso maraykanka maadaama gacan ku-haynta marinbiyoodka hormus uu ku wareegayo dowladda waddankaasi iiraan taasoo wadamada gacanka ama khaliijka qaarkood iyagu ay diideen tallaabadan washingtonna ay markaasi khatar kale u arkayso tani ayaa leeyahay isbeddelkeeda xitaa wuxuu shalaytoole ka hadlay cumaan heshiiskeeda haddii uu noqdo mid ka hor imaanaya marinka annaga aan jecnay toos ayaan u duqeyn doonaa ayuu isagu yidhi marka taasoo ku tusinaysa xitaa cumaantii lalahaa heshiis baa markaasi ka dhalanaya waxaad mooddaa inuu ka hor imaanayo marka waxaa jira hadallada hadda adiga aad sheegtay iyo sarkaalkan baad ka soo xigatay wuxuu ka mid yahay rag markaasi u ololeynaya dagaalka iyo weliba markaasi in la tilmaamo rag aad ay isugu dhow yihiin Israel amaba jecel marka laga hadlayo in Iran la weeraro oo la weeqo laakiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay 39 cisho ayaa la weeraray 13 cisho oo markaas haddana habeen la duqeynaya ayaa jirtay Iran waxaasoo dhanba wax natiijo maysan keenin ku dhawaad 6 bil ayaa la marayaa Iran maalintii ugu horeysay halkii ay taagnay meel ka duwan ayay taagantahay iyada ayaaba hormus sii qabsatay marka wax badan kama soo kordhayaan marka la eego arrintaas cabdiqaadir adigu mahadsan waxaa jirta in madaxweyne Donald Trump dhinaca kale uu sheegay in shalayto markii uu soo gabagaboobay ama uu soo idlaaday wada xaajoodiyadii dhabihii ay ugu xaarayeen xabad joojinta 60 cisho labada wadan in uu shaaca ka qaaday dhanka kale sida uu yiraahday Iiraaniyiintu waa inay madaxa ku soo xirtaan maryo cad ayna sheegaan inay dhab ka tahay nabad inay qaataan taasi ma suuroobi kartaa waqtigan ayadoo la og yahay Trump in xaaladda dhankiisa ay ku xun tahay sida saraakiisha Mareykanku ay sheegayaan waa mahadsan tahay Zara marka la eego tal in la isdhiibo oo maro cad markaasi gacanta ama madaxa lagu xirto ama gacanta lagu qabsado sare loo taago waxa ugu dhow madaxweyne Donald Trump waxa laga hadlayana ma aha marka taa la leeyahay laba quwadood oo isku mid ah ama Iran inay markaasi ku duuleyso Mareykanka ama ay ka qabsanayso magaalooyin ka mid ah dalkaasi laakiin waxa laga hadlay waxay tahay wixii Trump uu doonayay iyo dagaalka ku soo galay dhammaantood waa wada fashilmeen hubkii ugu sarreeyay ayuu isagu isticmaalayay waxa uu isagu isticmaalay gantaaladiisii noocii ugu fiicnaa maraakiibtiisii kuwii ugu badnaa waxaasoo dhanba waxay ahaayeen kuwo uu ku soo dagaalgalay dagaalka dambe hadda uu leeyahay haddii aysan isdhiibin waan ku qaadayaa su-aasha la isweydiinayo marka waxay tahay maxaa uu soo kordhin doonaa hub cusub oo Mareykanka hadda uu isticmaali doono miyaa jiri doona ma muuqato marka waxaasoo dhanba waxay ku tusinayaan hadallo macno badan aan lahayn oo madaxweyne Donald Trump markaasi isburinaya oo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay ama dhowrkii bil ee lasoo dhaafay waxaad arkayseen in hadalladiisu ay ahaayeen xitaa kuwo iska hor imaanaya waraysigiisa waxaa laga yaabaa bilowga hore wax inuu ku sheego dhammaadkiisana wax kale uu ku sheego oo iyagu ay isburiyaan markaasi marka wax badan oo hadda Mareykanka oo kusoo kordhin kara ma jirto marka laga hadlayo dagaalkan iyo weliba duulaan kale oo lagu qaado hal arrin baa jirta oo suurtagal ay tahay inay wax ka bedesho xildhibaanada jamhuuriga ee aadka loo garanayo Marjorie Taylor Greene waxay sheegtay saacadihii ugu dambeeyay inuu jiro kulamo qarsoodi ah oo dhex marayay maamulka Donald Trump kulamadaasi waxay markaasi ay la xiriireen bay leedahay aqalka cadna ay ka dhaceen in la isticmaalo hubka wax gumaada nuclear-ka oo Iran lagu dhufto heer wasiir ayuu Trump la kulmay rag khubaro ayuu la kulmay qarsoodi ayayna ahaayeen bay leedahay marka qof jamhuuriyadda oo aad ugu dhoweyd Donald Trump walow hadda iskhilaafeen isla markaana galaangal fiican bay ku leedahay baa leeyahay gudaha maamulka Donald Trump sidaas daraadeed cabsidaasi ayaa hadda taagan in Trump maadaama albaabadii kale ay ka soo xirmeen inuu yiraahdo waxaan isticmaalayaa hubka wax gumaada nuclear-ka taasina beddelkeeda Iiraaniyiintu way soo saareen hanjabaadoodu waxay yiraahdeen rasaas haddii ay noqoto rasaas bay noqonaysaa gantaal haddii ay noqotona waa gantaal nuclear haddii dalkayga lagu dhuftana annaguna waxaan weerari doonaa goobaha nuclear-ka marka Dimona Israel marka xaaladdu aad bay u khatar badan tahay dhanka marka laga eego
Pentagonku waxa ay soo gabagabeeyeen oo sheegeen macluumaad aruun ay sameeyeen sida saraakiil hoose oo dhinaca mukhaabaraadka oo ka tirsan Mareykanku ay soo dusiyeen warbaahinta ay u sheegeen Pentagonka ayaa muddaba waxa uu quudareynayay ama uu raadinayay sidii howlgal military ay ugu guuleysan lahaayeen in markaasi ay maraakiibta ku gudbiyaan si dhib yar biyaha marinbiyoodka Hormuz arrintaasi haatan ma suuroobaysa ayay leeyihiin sida warbaahintu ay xaqiijinayso marka Trump xaaladdu sida ay tahay wuu arkaa guud ahaan dalka Mareykanka saraakiisha mukhaabaraadka gaar ahaan kuwa ka tirsan Pentagonka sidan ayay u hadlayaan dhabaha u furan muxuu yahay oo aan ahayn mid military waa mahadsan tahay marka la eego waqti xaadirkan waa sax in xogtaasi ay jirto oo lasoo dusiyey Pentagonka inuu qiimeeyey ahaana qorshe military oo damaanad buuxda markaa qaadi kara ama damaanad qaadi kara marinka Hormuz in maraakiibta ay maraan isla markaana uu furnaado laakiin waxaa la sheegaa 4 markab ama 3 markab in mar qura oo la soo dusiyo ay u baahnaanayaan maraakiib ay u baahnaanayaan kor inay kala socdaan diyaaradaha dagaalka ee F-35 iyo kuwa kale la midka waxaana lagu sheegay in dhowr milyan talaabadaasi kaliya ay qaadanayso markaasi ama ay qaadayso taasoo keenaysa markaasi caqabad inay ku noqoto shirkadihii insurance-ga qarashaadkii iyo waliba markaa badeecadihii saarnaa ganacsatadii lahayd markaa ama dadkii lahaa waxaasoo dhanba waa culays markaasi muuqda marka laga hadlayo waana waxyaabaha fashiliye marka laga Iran waxaa jira u fududay juqraafi ahaan masaafada Iran bay u dhowdahay taran waxay siinaysaa marka faa'iido ku timaada difaaca marinbiyoodka Hormuz oo mana baahna in marka maraakiib halkaas ay geysay waxa halkan taalo laga soo tuuro geeska ugu xageeya ayaa waxa uu siinayaa in markaasi gebi ahaanba ay u xirmo marinbiyoodka Hormuz markaas marka maxaa u furan oo wadada uu qaadi karo maxay tahay markay noqoto wadada ugu dhow waa in uu isagu heshiiskaasi aqbalaa isla markaana heshiiska Iran uu la socday oo isagu gacantiisa ku socday uu isagu fuliyaa amaba dagaal inuu qaado oo markaasi natiijadiisu in badan oo kamid ah qobarada Mareykanka waxa kamid ah korneelka caanka ee reer Mareykan Douglas wuxuu leeyahay McGregor wuxuu leeyahay in dagaal xitaa hadii la qaado oo hadda waqti xaadirkan wuxuu qabaa dagaal loo dhow yahay dagaalkaasi hadii la qaadana natiijadeedu ay noqon doonto fashil isla markaana Mareykanka uu ku fashilmi doono Professor John Mearsheimer oo kale isaguna wuxuu qabaa dagaalka xiga wuxuu noqon doonaa dharbaaxo kale oo Mareykanka ku dhici doonto marka waa ragii khubarada ahaa oo tusaale Colonel Douglas McGregor waa nin adugtiin dagaalo badan Mareykanka uu isagu soo hogaamiyay wax badan ka og marka la eego ma inuu isagu jecel yahay Iran laakiin waxaad moodaa inuu arkayo istiraatiijiyad xumada maamulka Donald Trump iyo waliba sida ay ku wajahayaan xaaladda dagaalka Iran dhinaca Iran maxay yihiin wararka ka imaanaya ilaalada kacaanka dalka Iran waxay sheegeen in aysan ka doonaynin Trump inuu muddo kordhin u sameeyo xabajoojintii wada xaajaday dhex mari kara maxay yihiin waxyaabaha ay dowladda Iran haatan ayada laftirkeeda ay ku tashanayso ama is leedahay ee talaabooyinkaas ay qaadi kartaa marka laga hadlayo waxa la isku raacayaa Iran inaysan dan ugu jirin in sidan la ahaado dan ugu jirto dagaal kooban inuu socdo oo ah mid markaasi iyagu faa'iido ay ku qabayaan oo mar kasta oo Mareykanka markaas iyagu cuna qabataynta way saaran tahay dan ugu ma jirto marka in xaaladdu sidan ahaato marka waxay helayaan baa leeyahay marka dagaaladu ay socdaan marina ay waxooda marsiin karaan sidoo kale waxa la aaminsan yahay waqti xaadirkan culays in Mareykanka uu isagu saaran yahay duruufaha hadda jira Iran ayaa ku faa'iido badan waqti xaadirkan taasi ayaa keenaysa baa leeyahay Iran inay u arkayso gaar ahaan dhanka mayalka adag ee ilaalada kacaanka oo la leeyahay waqti xaadirkan waxay yihiin kuwa ugu dhow marka la eego marxaladan dagaal in la qaado waxaa jira dowladda dhankeeda kale oo iyagu u ololeynaya in wada hadalka la sii wado laakiin garabka mayalka adag waxay leeyihiin maya waxaa habboon waqti xaadirkan in dagaal la aado bedelkeedii inta Mareykanka heshiis aan dadka markaasi la siin lahaa aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdulqaadir adiga mudan Zahra daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa falanqayntan iyo wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe haatan
intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa fadlan la socdo janaaladana kala gedisan si aad ula socotaan wararka xaqiiqooyinka ku salaysan ee guud ahaan caalamka ka dhacaya gaar ahaana bariga dhexe oo xaaladaheeda daqiiqad walbaba isbedelayaan oo aan isha ku hayno inta ka horeysa waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Qayska oo idin la isma dhaafin ee nabadgelyo